أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله شرفت لي الصوماليات كان دقيسان دونو ولدي السلامية سلام كدب فيديو قلنا فيديو الصب أما يوتيوب الصب يعني واحد إنه أنا ما قيس كافريكا جارهان إثيوبيا هي الصومالية وحكد هاين دونو وعرفنا إن مل الرجال فيديو قلنا ذلك الصوماليات أي دقيستان سوى ناكسن دقيستان وطلبحين ودقنين وأرين عبسيدة له وأنا كفي جنادان ود الصوماليات أرنتها وحكساب سنتهاي دونستا أبي أحمد ودون هي بد الصوماليا وعن أركيني معلومة أبي أحمد وقاضي دقيو دونستا بد الصوماليا ولا هيو بقول اللي به 10 مليون بضعان ما هنكرتو وهي حسوس أرنتاس وزير كوين كريمة هدبت قبل ديهات حلقي جورج بوش مريكانكا أياد تري وواح لو يابو أما دعي كرين 15 مليون wax ka yar badda ugu dheer Afrika leh iyo 100 milyan oo badla'aan ah macnaheeda meeshaas waxay bixinaysaa signal oo dhehayso Ethiopia waa inay xogtaa badda Soomaaliya maantana 10 sano muddo ku dhow Abiy Ahmed ayaa ka dhawaa jaarankaas maalmahan markuu hadlayay maanta ugu dhawaad waa cadayste marka hore wuxuu yiri bad waa inaan helnaa badla'aan ma ahaan karno حال يحب وحكونا وانا بدهنا ugu dambeyn wuxuu ku dhawaaqay inuu doonayo badaha Soomaaliya bad ka mid ah gaar ahaan dekedda Saylac arrintaas ummadda Soomaaliyeed way dhalishanaysaa cid ka hadlayso ma jiro annaga baas ku mashquulsan waxaan ka hadlaynaa doorasho dhexdeena waxaan ka hadlaynaa siyaasaddeena kuwa walaalaha youtubeyada leh Soomaaliya dhexdeedu bay ka hadlaan kuwa tiktokyada ama social mediaga waxay uga hadlaan dhibka Soomaaliya dhexdeeda inay wadda Soomaaliyeed isku diraan inay kala geeyaan inay qabiil ka hadlaan waxa yaaba oo marar qaar iga yaabiya markaan dhegeysto social mediada waxyaabaha laga hadlo maanta adduunka 50 jir iyo 60 jir waxa u dhaxayo ee adduunka hogaamiya laakiin dhalinyaradii dadaas aheeda Soomaaliyeed qabyaladay ku foofeen waa foof markaysid wax adduun kale ka hadlayo ayagu dhaxdooda ayaa iska hadlayaan arrintaa waa cabsi iyo mataqaanaa dhibaato Soomaaliya ku soo socota marka waxaan uga digayaa walaalaha sharafta ee youtubeyada ama social mediada ku jiro inay arrintan ka hadlaan qaadaa dhigaan maalin kastaba arrintan arrin la dhalisan karo maaha Abiy Ahmed wuxuu doonayaa badda Soomaaliya inuu xoog ku qaato maantana waa muuqataa waxa qasa ka dhacayo in international community oo meesha ka baxay cid ka celinayso jirin sharci cid reeb ee sujiran ama mataqaana xakameynaysa oo meesha ka baxay international community sharciyada wax xakameyn jiray wadarkaasin ilmaha ciyaalka la laynaya Gaza ee Soomaaliyeed aan dhahay raalli ahaada Falastiin meel bilaasha lagu laynaa cidna ka hadlahin sidaa daraaddeed ninba ninkii ka xoog badan ama dowladba dowladda ka xoog badan too ayay ku duulaysaa aanay ka xoogaysaa badeeda abiye waa sheegay wuxuu rabaa inuu badda xoogo uuna qaato arrintaasaan uga digayaa Soomaali gaar ahaan waxaan u digayaa kuwa dowlad deegaanka degan ama kuwa Saylac degan oo ku celcelinayo abiye wuxuu rabaa inuu badda mataqaanaa ku shaqaysto anagana dhaqaalaha naga soo galo ma dhacayso Ethiopia hadday meel qaadato way qaadatay mana ka soo noqonayso dalka Soomaaliya 60 sano horteed ayay qaadatay 60 sano horteed ayay qaadatay tanna way ku darsan rabtaa
sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waa inay ka feejignataa dowlad degaanka markuu hadlayay abiye wuxuu yiri maxaa ka dhigay soomaalida nala degan badlaan soomaalida kala bad macnaheeda isagoo bixinayo signal ah in soomaali uu isticmaalo dagaalka soomaali kale ama doonista badda soomaaliya marka waxaan idinka digayaa arrintaas in dowlad degaanka dadka ku dhaqan ay soomaali arrintaasna ay ku raacin ama ka aqbalin abiy axmed waa digniin intaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu